horta aad u mahadsantihiin warbaahinta sharafta leh dhaqsaha aad noogu soo ajiibteen xoogga aad ku timaadeen iyo sida nidaamka leh oo maaragtay professionalismka ama aqoonta ixtiraam ka muuqato oo aad u dhaqanteen ama aad u dhaqmaysaan hadda iyo marar horeeto aynu shirar lahayn ama kulamo lahayn marka runtii aad idinka mahad celinaya maanta waxaan isugu yeeray halkan safaaradaha madaxda safaaradaha Soomaaliya jooga iyo madaxda hay'adaha qaarkood sida SRSG-ga oo UN-ta Soomaaliya madaxda ah waxaan kala hadalay laba arrimood oo ku saabsanaa kulankayagu arrin kale oo saddexaadna waa u tilmaanay arrinta saddexaad aan u tilmaanay waxay ahayd waxay ku saabsanayd Suudaan dowladda Soomaaliya xukuumadda Soomaaliya ku meel gaarka waxay u sheegtay federaalka xukuumadda Soomaaliyeed ee federaalka waxay u sheegtay caalamka inaan soo dhaweynay taageersanahayna heshiiska wax ku oolka ah ee Suudaan qaybaha Suudaan ay gaareen golaha ciidamada ku meel gaarka ah waxaa loo yaqaanaa Transitional Military Council iyo xoogaga isbedelka iyo xorriyadda ama waxaa la yidhaahdaa quwat التغيير والحرية السودان heshiiskay gaareen oo aada loogu baahnaa ayaanu taageeray adduunkana u sheegnay maanta war-saxaafadan aan ku baahinay ama ku baahinaynaa waxaan u sheegnay in ay Suudaan u baahan tahay taageero inay joogto meel muftaraq طريق ama crossroads meeshii Suudaan ama ay hana qaadi lahayd oo ay ka soo kaban lahayd dhibaatooyinkii siyaasadeed iyo kala qaybsanaantoodii oo Suudaan oo dal weyn muhiim ah baaxad ahaanna weyn juqraafi ahaan dalalka Afrika ugu waaweyn intaysan kala go'in Suudaan iyo South Suudaan waxaa dalka Afrika ugu weyn haddana waa dalka labaad xagga baaxadda waa dal xuduud la leh 7 dal oo kaleeto iyo badda cas waa dal qowmiyado badan ay degaan waa dal dalalkii ugu horreeyay xorriyadda qaatay Afrika taariikhna kale Afrika Soomaaliyana oo ahaa hiil ardada ugu badan oo dibadda Soomaaliya wax ka barata Suudaan bay wax ka bartaa marka Suudaan wuxuu noo leeyahay muhiimad gaar ah aniga muhiimad gaar ah ii leeyahay oo 10 sano aan ka soo shaqeeyay arrimaha Suudaan aad baan uga dheregsanahay marka aad baan ugu faraxsanahay Suudaan oo heshiisay oo hana qaaday inaan aragno intaas oo u sheegnay beesha caalamka waxaanu ku dhiirinay in la garab istaago oo aan caqabado loo abuurin oo cunaqabatayntii lagu hayn jiray iyo dhibtii beesha caalamka ay ku hayn jirtay laga qaado laga daayo Suudaan hadda oo dadkoodii ay heshiiyeen oo mustaqbal ifaya ay leeyihiin taas markaanu u sheegnay waxaan kaloo kala hadalay laba arrimood labada arrimood waxay ahayd xiriirka aan u goynay dalka jamhuuriyadda Guinea sababta aan ugu goynay iyo sida aan jecel lahay beesha caalamku inay hadda ka bacdi arrimaha Soomaaliya ula dhaqanto waxaan kaloo uga waramay
ra-iisul wasaaraha kulankiisii socdaalkiisa iyo kulamadiisii gobolka ama dowlad goboleedka Galmudug iyo guulaha laga soo hoyay. labada arrimood ayaan maanta kulankayo ku saabsanaa diblomaasiyiintii aanu la kulanay. arrinta xiriirkaan u jaray jamhuuriyadda Guinea waxaan ku niri wuxuu ku saabsan yahay waxaa keenay Guinea oo ixtiraam daraysay oo meel uga dhacday qarannimadayada, midnimadayada iyo wadajirka ummadayadana khatar gelisay. khaladka ay sameeyeen reer Guinea ma aha oo keliya inay qarannimadii Soomaaliya u gafeen, laakiin waxay waxyeelo ku yihiin oo ay caqabad ku yihiin oo ficilka saas oo kale ah oo caqabad ku yahay inay dib u dhac ku sameyso dib u heshiisiinta Soomaaliya iyo soo ururinta dadka Soomaaliya. haddii dadka Soomaaliyeed aan la siinin waqti ee iyagu ku wada hadlaan, tusaale haddaan usoo qaadano Somaliland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ama xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, hadday iyaga Soomaali isla iyaga Sudan iyaga annaga hal dad ah, khayr baanu la jecelahay walaalahay Somaliland inta goosashada rabta iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan meelay joogaanba. laakiin annaga inoo taallaa sidaan u heshiin lahay. dal kale oo dibad iyo xoogo kale nooma goyn karaan sidaanu u jiri lahay. marka mar kasta oo faragelin dibadda nagu timaado waxay caqabad ku noqonaysaa isfahamkayagii iyo maaragtay wada hadalladayadii. maxay dad uga baahan yihiin inay isla hadlaan hadday arkaan in dalal kaleeto ay ula dhaqmayaan sidii ay yihiin dowlad. Somaliland ma aha dal madax bannaan oo ka madax bannaan Soomaaliya oo gooni u taagan. adduunka meel u aqoonsan ma jirto saas. sharciyada adduunka oo dhan iyo go'aamada adduunka oo dhan UN-ta, AU-da, dalalka islaamka, carabta, IGAD kulligood waxay qiraan Soomaaliya inay tahay hal dal iyo hal dad oo mid ah. marka adduunku saasuu qabaa, saasayna tahay. adduunkuna inuu sidaas dalalka qaarkood inay ixtiraamaan weeye go'aamada adduunku ay qeybta ka yihiin. wixii khilaaf jira Soomaalida iyaga dhexdooda inay ka wada hadlaan weeye. dowladda Soomaaliya, xukuumadda Soomaaliyana sidii xukuumadihii horeeto diyaar bay u tahay inay walaalahood Somaliland la hadasho, la fariisato, la heshiiso, la isfahmo. laakiin dal kaleeto inuu noo carqaladeeyo, dhib noo abuuro kama yeelayno. waxaan u sheegay inaanan Guinea ka yeelayn. waxaan u sheegnay inaan hadda ka hor aan dulqaad badan u lahayn dalal kaleeto, laakiin hadda ka bacdi waxaan rabnaa una sheegnay inay dowladahooda u sheegaan in marka ay la xiriirayaan qeyb Soomaaliya ka mid ah oo diplomatic relations ama ha ahaado mid baac mushtar, mid ganacsi ama mid kaleeto siyaasada ha ahaadee, in ay dowladda dhexe ee Soomaaliya ay qeyb ka tahay, ay og tahay oo iyada lagala soo xiriiro. waxaan u sheegnay arrintaas inay tahay mabda aan ku xirayn xukuumadda markaa jirta. madaxda xukuumadaha Soomaaliya waa isbebedelaan. shalay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare kala jiray, maanta madaxweyne iyo ra'iisul wasaare kala baa jira. berito qof kasta oo Soomaaliya madax noqon kara, qof kale oo Soomaaliya oo Somaliland jooga madax noqon kara, qof
Jubbaland joogaa noqon kara, qof Galmudug joogaa noqon kara, qof meel kaloo Soomaaliya joogaa noqon kara. marka mabda'a ah qarannimada Soomaaliya, midnimada Soomaaliya in la ilaaliyo waa mabda' guud oo aan ku xirayn xukuumadda markaa joogta. sidaasaan u fahamsiinay oo ugu sheegnay. waxaan kaloo u sheegnay inay jiraan khatar iyo olole khatar gelin kara midnimada Soomaaliya oo socda. waxaan u sheegnay in maaragtay ololaha socda ay ka mid yihiin dalal la yaqaano. sidaa daraaddeed waxaanu codsanay in ay adduunka naga kaalmeeyaan inay u sheegaan dalalka adduunka inay ka daayaan Soomaaliya dhibta iyo maaragtay maxaa la lugooyada iyo lug qabashada iyo lug jiidida. taas waa midda ku saabsan xiriirkan u jaray maxaa la yihahdaa jamhuuriyadda Guinea, sababtaan ugu jaray iyo sida aanu jeclaan lahayn in dunida Soomaaliya ula dhaqmo. dabcan arrimo kaftanaan ugu dhex daray. waxaan u sheegay in aan ka mid labadii beri la soo dhaafay su'aalo badan la weydiinayay oo maaragtay dooda aan ka qayb galayay. shalay ugu dambeysay dood BBC u leedahay oo la yiraahdo dooda Jimcaha aan ka qayb galay. waxaa ku jiray wasiir Somaliland iyo nin kale oo yiri waxaan ahay khabiir arrimaha Soomaaliya ayaa igala qayb galay doodaas. marka idinkuna waxaa laga yaabaa inaad su'aalahaas weydiin doontaan. qolyaha hadda halkan u jeedana waa ay weydiiyeen mar hore waana ka jawaabay. Soomaalidu laakiin mararka qaarkood isma maqasho. marka waa idinku celinayaa su'aalaha ay weydiiyeen waxaa ka mid ahaa Soomaaliya ma la leedahay diplomatic relationship, xiriir diblomaasiyadeed si ay ugu jarto Guinea. marka waxaan kaloo arkayay niman wasiiro sheeganaya, madax sheeganaya ama khubaro sheeganaya oo iyaguna dhahayay su'aalahaas oo kale isweydiinayay. marka waxaan idiin sheegayaa diplomatic relationship kuma xira, ma aha safaaradaha kaliya. safaaraduhu qayb ka mid ah. dalalku waxay leeyihiin diplomatic relationship iyagoon safaarada isla lahayn. way istaageeraan, maxaafiil bay isugu yimaadaan, waa la kulmaa. annaga iyo Guinea AU-dan ku wada jiraa, ururada islaamkan ku jiraa, waa isu nimaadnaa, madaxdayadu waa kulmaan, waxyaabahaanu iska kaashanaa tiro badan. marka hadda xiriiradaas oo dhan ayaanu jaray maadaama ay geefkaas naga galeen. inta ay ka saxayaan saasay ahaanaysa. marka haddii su'aalahaas aad qabteen madaxiina ay ka guuxayeen sida dadka iska dhigaya cabqariyiinta inay og yihiin arrimahaas iyagoo wax badan ka ogeyn arrimahaas, waa idinka jawaabnay. tan kaloo ina weydiinayaan waxay ahayd maaragtay dalal kaleeto ayaa idinkuna waa laga yaabaa inay ku jirto madaxiina. marka hadda idinka jawaabo hadhowdii inaydaan weydiin baan rajeynaya. inkastoo Soomaalidu ilowshiye badan tahay oo waxaad ka jawaabtay maanta oo dhan ka jawaabaysa haddana ay ku weydiin doonaan, ay ku weydiiyaan. marka waxay yidhahdeen dalal kaleeto badan baa jirto Somaliland madaxdoodu tagto saa loogu soo dhaweeyo, maxaa iyaga ugu jirooda xiriirka. marka waxaan ugu jawaabnay waa mare in mararka qaarkood la safro ceeb maaha. marka adduunka waxaan baraynaa sabirka. tan labaad dalalku isku heer ma aha. dalal baa aada xiriir noolo leh oo aanu dulqaad siyaadaa u muujinaa. dalalka qaarkoodna waa soo tagaaloodeen, waa soo gacan dheer bay soo direen. marka gacantaas waa dheeraatay. tan labaad mabda' baa jira kaleeto adduunka jiro ah dalka xorta ah ama safarinkaa sida Soomaaliya oo kale go-aanka ay qaadanayaan iyagaa yaqaana si ay u kala dooranayaan. arrimaha qaarkood inaad prioritize garaysid, inaad u kala hormarisid sida adigu rabtid, waa adiga go-aan ku yaalla wa. marka wariyaashu iyagoo iska dhigaya xarfaan inay su'aal adag ku weydiinayaan
iyo mararka qaarkood waxay u ekaadaan ka sokow inaysan